waayahay daawadayaal dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan waxaan idin hayaa sheeko yaab leh sargaal ama askari ka tirsan ciidanka sirdoonka nabad sugidda qaranka oo la yidhahdo culi oo ah nin caan ah oo muqdisho aad looga yaqaano oo ragga askarta ugu qatarsan ka mid ah ayaa waxaa lagu amray in uu soo dilo xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur oo nin si weyn loo yaqaana ah oo xildhibaan ah oo wasiir dowlihii hore maaliyadda ah dowladda xasan sheekh sidoo kale taa nin ganacsada ah oo la yaqaano ganacsiyo ballaaran kule magaalada muqdisho u dhashay beesha harti abgaal ismaan hiraab marka culi ayaan balse sida wax loo amray ayaan ka wareysanaya haya culi kuma la daaro waxa jirto shan in yeeray leedahay waxa u dhamaysaa xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur waaya soo dil cabdullaahi maxamed nuur ha waaya kadib maxaa dhacay marka ma shalay lagu yeeraya ha shalay hay maxaa lagu yiri cabdullaahi maxamed soo dil ha yaa ku dhahaya taliyaha baaristo magaciisa maxaa leedahay fiido miya fiido qabiilkiisa uu yahay abgaal warsingeli isagaa ku yeeray wuxuu ku yiri soo dil xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur asaa ii yeeray taleefankiiga waxay weliba albaabka gacanka ka hadlay oo iga dayay gacanka kasoo hadlo kaasoo daayay oo ilahay ii yimaado ha waayahay marka maxaa dhiiraho lagu sheegay marka lagu qof soo dil xildhibaana maxaa qorshaha lagu sheegay qorshaha ii sheegay waxay tahay lacag $150,000 marka nin walaalkii xildhibaankii $150,000 ku gadamaayo xildhibaankan hoon u geysiyay si xaalad u jirtaan u sheegay waa sidaaseen wax u dhacay haddii lagu yidhahdo hal milyan lagu siiyaa ka war muku bedeli lahayd seen ugu bedelay xildhibaankii qof ii bedelaysa ma jirto waan in adeerkii xildhibaankiina waa qof kaleeto muwaadin haddii liidar xataa aan siisanin laakiin fiidowgii maxaa u dhihi weysay aniga askari ka tirsan hay'adda sirdoonka nabad sugidda qarankaan ahay nisaan ahay inaan xildhibaanka difaaco oon ilaaliyo amnigiisa aan u dhaartay oon askari u ahay sababtaan ku dilaya maxay tahay maxaa u dhihi weysay wallaahi meeshaan iyo daahiro waxaa jiro isgaabisaa jiro haye waa la isgaabshaa magaaladan waaya waan u sheegay hawshaas marka dadka igu firfircooni u diraan dhahay marka waxa waa adiga dhiigaa kugu jiro $150,000 qaado adiga dadkaas la shaqeeya liidahay aniga la shaqeey ma karaan dhahay kadib markaa soo baxaa waxaa liidaa macluumaad oo ka qaata xabiiska meel walba la isku sheegay marka xataa dadkiiga dhawaacaya la dhaha macluumaad oo soo qaatay marka waa kaasa marka adiga kula shaqeynaa markaa dilaysa cabdullaahi maxamed nuur oo xildhibaanka soo dil guleeya yaa kula shaqeynaa lagu yiri dadkii la shaqeynaa liima sheegin laakiin haddaa hawsha u dalaalayso liima sheegin ha waxaa ku dhaaftay maadaama nin hadda sirdoonka ka tirsanna aad tahay waxaan umalaynaa askari kaliya tahay waxaa ku dhaaftay inaad tidhaahdo hawsha waa qabanayaa lacagtana dhiilkeeda halaysiiyo kadibna aad ogaato networka dadka wax dilaya ee kula shaqeynaya cidda lacagta aad ka qaadanaysa intaasaa ku dhaaftay soo lama dhihi karo ha intaas ay dhaaftaa waaya cabdullaahi maxamed nuur waa u tagtay cabdullaahi maxamed nuur uma tegin caadi aan wada hadalnay weli maan is arkin waan ismaqalnay xaaladda se u jirtaan u sheegay fowjignaan dheeraad lahaa baa nahay marka wax walba ma u sheegay se wax u jiraan hadda cabdullaahi maxamed soo dela wiri sharciga oo muqaabaraadka ama sirdoonka caalamkana waxaa weeye ama sirdoonka dowladuhu askariga loo diro howlgal haddii uu ku fashilmo ama uu kashifo in la dilo marka adiga hadda muqdisho joogta haddii lagu dilo yaa ku difaacaya inuu difaaca karaa waxa waaye cabdullaahi maxamed nuur dartiisa waan eeda u galay marka waa kaasa marka hadda cabdullaahi maxamed nuur muku difaacaya hadde cabdullaahi maxamed nuur inuu ku difaaco ma laga yaabaa maadaama dartiisa aad u gashay haddii mataqaanaa lagu soo weeraro cabdullaahi muku difaaci karaa ciidan ma haystaa kugu difaaco awoodda mu leeyahay wallahi waa inuu difaac u badan tahay sababtoo ah ninka aniga qandaraaska aan ku qaatay in lagu siyaasi ahayd aniga haddii nashadiisa dan igaaga jirto nolosha u diidanayo ma fiirshan cabdullaahi maxamed nuur danihayga gaarka adeegsanayo okay waxaan ku weydiinaa su-aal marka intuu fiidow kalsooni intaa leeg kugu qabo uu ku leeyahay xildhibaan qaran soomaaliya soo dil ma la dhihi karaa marka hore daliil u fulisay oo dad kale u dishay
maya maxaa keenaya marka kalsooni aqoona isku leenahay isku dugsi ahaan jirnay isku dugsigaan ahaan jirnay xaafada isla wadanaa jirnay marka kalsooni intaa la eg maxaa keenaya dad isku dugsi aadan marka hore ku ogaanin dilay inaad dadka dilan buu ku ogaa weligii xataa qore ma qaadan daarow kama agdabaan xataa hub jiyada kale u shaqaystaa awaaye marka videon inuu dadkii wuxuu leeyahay rumaanti ugu yaraada ninkaas maxamed teleefanada mooshito marka waa kaasa marka seed marka haddaad toogashada aqoonsiyeed ku dili karta marka xasiyad ugu tababaran karta inaad qofkan disho markaad dilaysa sababta aniga dilka ma fulinayo nashqadiyaan soo wadaa hawsha aan kala wadaa meesha lagu weeraraa waa BCU qaab argagixisaa loo galaa marka aniga nashqadiyaan soo fiirfiirinaa ها معناها أسأل واحد هاد إن الصحن سميسو أو قيبت استراتيجية أما الصحن كأيات قبل سنة إن متقانا أصوا أركت صوا عندي إن دايسو ها مركا أيوة ما سي أنت أسكو أود وين دول دوا سيكو أود وين لا فهمنا taas waaye aniga kulli ninkaas waa iska agdadownahay kalimaankiina waa yahay marka soo marka ii sheegan aniga shal durkii xilwaanka waa u sheegin maqribida camal ah weeysiiyay marka aniga waa ka tagaynaa magaca waaye hadda maadaama arrin muqaabaraad aad gashay inkastoo wajiga iga tegay oo madow u noqday maadaama shaqo muqaabaraad aad gashay سو كم في عنا أنا ساعتها تمجالات مغشوء دبت ودفت. والله يا ما تاسقط في وجود العمر طريقة سواء هذا. أيه. هذه كده. وعياب إن لنيردي متقنا قرن كله دفاع إذا لا تعبرين محمد يجين أساس سعودي أو مالنا ليلة اللي بنا سعودي لو واحد عياب له أيوه ها وصلنا غينا دوغائي وأنتوا كجرا مركب هاي هاي ويا هاي هاي ويا هاي